waxaan soo sheegnay in Abuubakar al-Baaqilaani uu diiday in uu cimaamada iyo labiska uu xiran yahay beddelo oo uu sidaa ugu galayo boqorka. waxa uuna boqorku ogaaday in ninkii diiday in uu cimaamada iyo qaablabiskiisa beddelo aysan macquul ahayn in uu ka soo galo albaabka asaga oo rukuucsan. haddaba waxa uu amray boqorkii in hoos loo gaabiyo albaabka laga soo galo, si marka uu soo galayo ugu qasbanaado in uu rukuuco oo uu madaxiisa hoos ugu foorariyo boqor. markii uu Baaqilaani arkay waa uu fikiray, waxa uuna ka soo galay albaabka asaga oo daba u socda. boqorkiina waxa uu aad ula yaabay caqli badnidiisa, qalbigiisana waxaa galay haybad weyn. soo dhowow wasiirka boqorkow. boqorku waxa uu rabaa mar haddii aad safarkii dheeraa ka nasatay in uu kaala niqaasho arrimo caqiidada ku saabsan. haddaba diyaar ma u tahay niqaashkaas qaadiga muslimiintow? idanka iyo awoodda alle waa idinkaga jawaabi doonaa wax walba oo aad i weydiisaan, waana idin siin doonaa jawaabteeda insha allah. una sheeg boqorka in aan joogo oo aan imaan doono xilliga uu inoo qabtay. waxaad ii sheegtaa qaadiga muslimiintow, maxaad ka aaminsan tihiin ciise? waa ruux xagga alle ka timid, waa kelmadiisa kun fayakuun ah, iyo addoon rasuul ah oo uu alle soo diray una abuuray sida uu aadanba u abuuray. oo muslimiinay, ma waxaad leedihiin ciise waa addoon? nacam, saas ayaan leenahay oo aan aaminsanahay. oo ma aaminsanidhiin miyaa inuu wiilka alle yahay? ilaah baa kana sahan in uu ciyaal yeesho. waa hagaag, haddaba ii sheeg, xagee lagu arkay addoon wax abuuri kara waxna noolayn kara? alle uun baa awood u leh arrimahaas oo dhan. haddaba sootuu qur-aankiinnu sheegay in waxaas oo dhan ciise sameeyey? wuu abuuray, waxa uuna daaweeyey waxaas aan soo sheegnay. markaas ayaad adigu isku dayasaa inaad dafirto waxaas oo dhan, ciisena addoon ku sheegaysaa. ma addoon baa wax nooleeya? ma addoon baa qof indhoola'aan ku dhashay daaweeya? maya sug. waxaa keliya oo uu qur-aanku inoo sheegay in ciise waxaas oo dhan idanka alle ku sameeyey. shimbir ayuu dhoobo ka abuuray idanka alle. waxa uuna wax ku nooleeyey idanka alle keliya. waxa uuna daaweeyey dad indhola'aan ku dhashay idanka alle. waxa uuna daaweeyey dad baras qaba idanka alle. oo haddii la dhaho ciise asaga ayaa waxaas oo dhan awooddiisa ku samayn jiray, waxaa ka dhalanaysaa in la dhaho muuse calayhi salaam awooddiisa ayuu badda ku kala jeexay. mucjisooyinkii nebiyada oo dhanna awooddooda ayay ku sameeyeen ee awood alle kumaynan samayn. haddaba maxaad mucjisooyinka nebiyada allah keliya ugu tiirinaysaan? mucjisooyinka ciisena aad asaga ugu tiirinaysaan. mucjisada la siiyey ciise calayhi salaam waxa ay la mid tahay mucjisooyinka la siiyey nebiyada kale. waxa ayna ku dhaceen dhammaantood awoodda alle keliya. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.